السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم دمانتين أديت بندين سلام يا محاذا رمضان كبلوغيسي أيا دور شركات أيا إيميل بيدتك أدريين إكستوي إيميل كهيان مركا وحي إسكوديين إن السمايان وحي الأورنجري إيميل ماركتين لكن يقون أقون أولهين خلط بيكون دعين هذا ما أنت وحن كوله وذاك يا khaladka shirkadaha ay ku dhaceen waxay isku jiraan Djibouti dhexdeeda shirkadaha waxay isku jiraan dawlad iyo private ba inta way isku jiraan marka khalad bay galeen ay malahada iyagu haystaan inay sax tahay marka tiibaan rabaa khaladkii inaan saxo adiga idaawanaya inay ku noqoto fursad shaqo in aad halka aad ka heli kartid fursad shaqo oo had iyo jeer dad baa jira maanta business mindset leh oo sidee baan mashaakil ama xal mashaakil aan arkayo aan uga samayn karayaa business idea ama aan ka samayn karayaa shirkad aan mashaakilka gaadin haddaba dhowrka shirkadood email baa aniga ii soo dhacay ay leeyihiin Ramadaan Mubaarak ay isku xayisiinayaan oo leeyihiin bishii Ramadaan baa soo gashay haddii aad alaabteeda rabtid qiimo dhibis baa jira may waxyaabo inaan ka sameey qaarkoodna ay Ramadaan kariim u leeyihiin laakiin khaladka ay galeen waa maxay waxay maqleen wixii la oran jiray email marketing marka email marketing kulli waxaan isleeyahay qofkii managerkii ayuunba qof shaqaalaha uu ku yiri yaa waxa jira email dadka loo diray Xaliimoy ama Cumaro emailada intii aad haysid soo ururi kadib u wala dir oo Ramadaan kariim ku dhex u sheeg waxyaabo caynkaas qofkii meesha joogay ee saal lagu yiri isagu ma kala garanayo emailka caadiga la diro iyo emailka xayisiiska ee la dirayo isagu ma kala garanayo isagu wuxuu garanayaa qofkani in email la diro oo dad loo diro haddaba khaladku waa maxay weeyaan shirkad marka aad qof caadi tahay emailku wuxuu leeyahay from iyo to gamayna CC baa jiro qof hadaad u dirtid laba qof haday ku jiraan qofka kale uu arkaya emailkiina qofkaana u dirtay haddaba shirkaduhu marka ay isticmaalayaan sida lama isticmaalo waxa la isticmaalaa software ayaa jira free iyo paid base ku jira qaarka freega xitaa ilaa kun email baad ku isticmaali kartaa kun emailna kugu filan emailka soo dhacay dadkooda ilaa 300 oo qof bay gaariyeen marka iyagoo ka shirkadaha ku maxay ku fiican yahay way isticmaali karaan Mailchimp balance yaraha haddaba Mailchimp ma isticmaalinay Xaliimadii ama Cumarkii loo dhiibay intuu qabtay ayuu intuu soo koobiyay emailka sidoo ku soo helay ilaahay baa garanaya si xeer dariya iyo si xeeraba soo ku soo helay email intuu soo wala qaaday ayuu toodii meeshii from-kii maana toodii buu ku paste gareeyay markaas dadkii oo dhan buu wala diray haddaba taay dib weyn weeyaan waayo dib weyn waxay ku tahay waxa weeyaan aniga emailkii markuu aniga ii soo dhacay waxaan arkay 300 oo kale oo email haddaba anigu si xunna waan u isticmaali karaa 300 ii soo dhacay si wanaagsan waan u isticmaali karaa maanta baa jira hackeriin ah oo raadinaya email qofkiisa inay qof emailkiisa helaan kadib fiishay ku soo dirayaan ama file bay ku soo diraan waxay koonaan waa kan textkii aan isku ogeyn ama invoice-kii aan isku ogeyn waa taaban computer-kaaga oo dhan waxa password iyo modibas ku jira waa la kale marka shirkadaha maanta waa shirkado waaweyn dibtoodana wax kala ma aha waa aqoon la'aanta daraadeed weeyaan waxay saabu dhaceen qaarkood waan u respondeeyay ama u jawaab waxaan ku yiri maxaad email-kaygi dadka oo dhan u wala siisay inta uu badan kaaga jawaab laakiin shirkad baa soo jawaabto tiri raali ah shirkadda aad iyo aad ay more professional yani mar baad ku jawaabayaan it's more professional laakiin inta uu badan way soo jawaab way garaan waxaanu khalad yahay in email-kaygi ama email qof kale in dadka wala tuseen kadib dadkaana soo doonaan ku isticmaali kara kuwii hadday doonaan qaar kale ka koobiyeysanaya nin kasta iyo meeshu la maro haddaba adiga idaawanaya ee dhalinyarta ah ama raadinaya mustaqbalka inaad business kale inaad furtid may aqoon kale inaad raadsatid may inaad aqoontaada oo wax ku sii siyaadsid sababku maxay ku anfacaysaa waxay ku anfacaysaa aan isleeyahay laba oo kaliya ayaan ku soo koob
labadaas waxa weeyaan horta inaad ogaatid in shirkadihii ay barteen wixii la oran jiray email marketing. taa waa faa'iido oo waxay ka dhigan tahay maanta shirkad haddaan u tago oon ku idhaahdo waxaan idiin samaynayaa email marketing, marka u horeysa waxay moodi doonaa wax la cunay, laakiin wax la cuno maaha, waa shaqaad ku odhan doontaa oo email baad u diri doonaa. wuxuu ku odhan doonaa war ma emailkii from to la garanayba may saamaha baad leedahay. technical baa jira, technicalkana waa soo socdaa, bal intii aan isku dayo noodkan bal akhrisanaysaa iloobin. faa'iido kale ku soo baxaysa waxa weeyaan horta mar haddii ay arkeen inay horta ay barteen in email marketing jiro waa mid. ta kale labaadna waxa weeyaan waxaad arkaysaa inayna garanayn oo waa khalad inaad email marketingka saa loo sameyn oo dadka dhan email la wadaagso. taa ma tahay marka faa'iidada aan ka faa'iideyno anigu aan isleeyahay waa labada ayaan ku soo koobaya. haddaba qodob kale saddexaad maxay mashaakilkan dhacay ama arrinkan aan arkay Djibouti maanta ka jira aan isleeyahay inay geegeena Soomaaliyeed way ka wada jirtaa oo dadku maanta waxay rabaan inay email wax ku xayisaan laakiin aqoontii bayna lahayn. waxaad samaynaysaa marka adiga walaalkay u daawanayo dhalinyar waayeel gabadh wiil cidda duntiba haw horta marka ugu horeysa YouTube ka tagaysaa. anigu halka maanta ku wara sharxi maayo email marketing waxay ka dhigantaa waa cilmi aad iyo aad u weyn. YouTube kan baad ku qori email marketing badana af Ingiriisi ba yaa ku soo bixi, laakiin haddii aad af luqadaha kale ay sheekaba soo qaadi marka Faransiis maxay af English haddaad garanaysid ku raadi. waayo Englishku marka wax la raadinayo badana contentiga la helaa way ka badan tahay. marka af Ingiriisi ku raadi ama af ka doontiba ku raadi, qaarkood waxaa jira subtitle bay leeyihiin oo ku macnaynaya afkan uu ku hadlay xitaa luqadda aad doontaad ku bedelan kartaa. waa qodobka ugu horeeya. YouTube gal raadi email marketing site. ta kale labaad adigu practice gare. sidoo practice garan karaysaa shirkadaha aad rabtid inaad u shaqaysid emailkooga soo raadi ama LinkedIn ka raadi ama meel kale ka raadi, aday ku taala. soo raadi soo ururi. marka aad soo ururisid adigu demand shaqo dalab shaqo ku dir adigu oo waxaad leedahay hebel baan ahay aqoonta caynkaas baan leeyahay waaka haddii aad rabtiin waan idin tusi aqoonta aan leeyahay sidaan u shaqaynayo waxyaabo caynkaas. email marketinga Mailchimp maxay ku fiican tahay? waxay ku fiican tahay 100 qof haddaad u dirtid waa lahay garan waayeen 100 qof haddaad u dirtid qofna qofka kale ma arkayo emailkii loo diray. qof kasta wuxuu isku haystaa inaad adigu soo dirtay oo isaga u dirtay, laakiin sidaa ma aha. waxa weeyaan email baad diyaarsan, markaad emailka diyaarsatid ayaad u diri doontaa 100 ama 1000, it's up to you. haddaba marka aad inta aad samaysay kulli qof baa ku soo jawaabi doona. waan rajaynayaa inuu qof ku soo jawaabi, waayo intaasoo wax ood samaysay intaasoo email oo dirtay way adag tahay inay ku wada diidaan, laakiin 500 300 inta aad karaysid raadi. markaad u wada dirtid hadhowtoola interviewga marka lagaa qaaday waxaad u sheegtaa oo imanka khaladka ay ku dhaceen hadduu doono kii ha noqdo ama kor ha noqdee. waxaa jira email marketing marka la samaynayo emailka marka la diro statistic baa kaga soo baxa, report baa kaga soo baxda. reportka waa maxay? waa report aad iyo aad u muhiim ah. waa meeshuu qofku lacagta uu ku bixinayo. qofka shirkadda le reportka uu lacagta kugu siinayo waa kaa weeyaan ka ay maanta walaalaha garan waayeen ay markay emailka ay soo wala direen ay aqoon lahayn waa kaa weeyaan. reportka muxuu ku sheegay? reportka wuxuu ku tusayaa intan email aad dirtay imise qof baa furay emailka, imise qof baa akhriyay mayay, imise qof baa delete gareysay emailkaaga, imise qof baa spam gelisay, imise qof baana weli furin. waxaasoo dhan uu kala tusaya. kadib waxaad ku oran doontaa emailkan aad dirteen waxaan idin tusi doonaa inta qof ee furtay, inta qof ee akhriday, inta qof ee spam gelisay, waxyaabooyin caynkaas. waxaad tusi qofka aqoonta aad leedahay iyo tusi, kadib taabuu lacag ku siin doonaa. marka u horeysa aan ku ogahay shirkado email marketing ku shaqeeya, mahdi miicaado intaasana ku shaqeeyay lacag
waxaa dhici karta lacagtooda inayna bixin karin oo ay isleeyihiin shirkadaasi waa intaas lacag ka weyn ka doonaysa laakiin adigu marka ay kugu horeyso marka ay tahay ama qof dhalinyaro marka tahay ee lacag yar weydiisatid waxaan isleeyahay way ku ogolaan doonaan inta baan ku soo gabagabeynaa videoga aad iyo aad baad idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh